بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ismaqal arag suuban ayaanu mar kale hawada idinka leenahay kusoo dhawaada channelka Daljir Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan muuqaalka sii share garee channelka YouTube-ka ee Daljir Media-na subscribe noo saar page-ka Facebook aan ku leenahay ee Daljir Media-na follow iyo like isugu dar aad baad u mahadsan tahay mar walba aragtidaada iyo fikirkaaga waan soo dhaweyneynaa had wixii dhaliil ah iyo wixii talo ah iyo wixii tusaaleynaba waxaad nagula wadaagtaa qaybta hoose ee commentiga waanuna xusi doonaa oo waanu kusoo qaadan doonaa haddii allaha awoodda leh ogolaado caawa waxaan isku dayaa inaan diiradda ku saaro tabinteenan tooska ah laba qodob oo markaasi kala ah xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ee soo laabtay iyo heerarkii uu soo maray iyo ganacsigii Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo u wareegay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga aan ku bilaabay maanta waxaa dowladda Kenya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Kenya ay soo saartay warqad qoraal ah oo ay ku xaqiijinayso ama ku taageerayso go'aankii hore uga soo baxay dowladda Soomaaliya ee lagu soo celinayay xiriirka labada dal waxaad ogtihiin labada dal horey ay cilaaqaadka u kala qaateen safaaradihiina loo kala xiray kadibna dowladda Kenya waxa ay mamnuucday ama joojisay dhammaanba duulimaadyada ka imaanayay una baxayay Soomaaliya ee ka baxayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya khilaafaadkaasi kadib waxaa dowladda Kenya ay casuumad u dirtay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya isagoo arrintaasina ra'iisul wasaaruhu ku gacan sayray oo markaasi diiday Soomaaliya waxaad ogtihiin xilligan waxay ku jirtaa qabanqaabo doorasho ra'iisul wasaaruhu waxa uu arrinta ku sababeeyay inay jirto doorasho ay mashquul ku yihiin doorashada iyo diyaarinteeda isla markaasina uusan xilligan safar banaanka ama dibadda u bixaynin kadib dhexdhexaadin ayay galeen beesha caalamka gaar ahaan wadamada dariska iyo goboleedka IGAD waxaad ogtihiin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu Addis Ababa kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed wada hadallo ayay ku yeesheen kadibna Kenya waxa ay markaasi fasaxday duulimaadyadii u bixi jiray kana imaan jiray magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ee soo geli jiray ee dalkani Kenya kadib Soomaaliya ayaa iyaduna waxa ay soo saartay warqad qoraal ah oo ay iyaduna ku xaqiijisay in ay soo celinayso diblomaasiyaddii ama xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal u dhaxeeyay maanta dalka Kenya wasaaradda arrimaha dibadda iyaduna waxa ay soo saartay warqad qoraal ah oo ay ku xaqiijinayso in diblomaasiyaddii labada dhinac ay soo laabatay waxayna safiirka Soomaaliya ku casuumtay dalkan Kenya iyadoo safiirkeedana ku amartay inuu dalka Soomaaliya dib ugu laabto safaaradihiina dib loo furo haddaba xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ee soo laabtay maxaa dana ay ugu jira bulshada Soomaalida waxaa ugu jira faa'iidooyin dhowr ah kow Soomaalida halkan ku xayiran ee aadka u tirada badan ee doonaysa inay dalkoodii ku laabtaan hadday noqon lahayn kuwa qaxootiga iyo kuwa booqashada ku yimid ee aan sharciyada haysanin qaarkood dhulka ka soo galay ma haysan waraaqa ay ku laabtaan waraaqaha loo yaqaano go home-ta ama dal dib ugu laabashada sidoo kale Soomaalida halkan deganashooyinka ka haystay qaarkoodna ka shaqeysa ee baasaboorka Soomaaliga deganashada ku haystay oo ay baasaboorradii ama ka lumeen ama ay ka dhacsanayeen ma haysan meel ay ka cusboonaysiistaan faa'iido badan ayaana ku jirta Soomaalida noocaasi ah qayb saddexaad waxay tahay Soomaalida buufiska ka mareysa safaaradaha dalkan Kenya ku yaala ee caalamka oo iyaguna waraaqaha sugnaanshaha iyo kuwa dhalashooyinkaba looga baahnaa ma aysan haysanin safaarad waraaqaha u sameysa mar haddii safaarad dib loo furana waxay u fududeynaysaa Soomaalidaasi inay waraaqahoodaasi dib u helaan ama ay waraaqooda ka cusboonaysiistaan ama baasaboorradooda ay ka soo cusboonaysiistaan qaarkoodna ay baasaboorro ka qaataan safaaradda dib loo furay sidoo kale ganacsiga ku leh magaalada Nairobi iyo magaalada Muqdisho isay kala gooshi jiray xayirad ay ku ahayd waxayna taasi meesha ka saaraysaa caqabadaasi xiriirkan soo laabtay ayaa meesha ka saaraya oo labada dhinacba dadku markaasi socodkooda uu fududaanaya faa'iido badan ayaana ku jirta inta ayaan kaga gudbiyaa qodobka markana aan gudubno qodobka xigay ah ganacsigii Soomaalida ay ku lahayd magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo u wareegaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Soomaalida waxa ogtihiin xaafadda Islii waxa ay u maalgashatay si markaasi aan caadi ahayn oo غير caadi ah oo waxay ogtihiin tirakoob la sameeyay sanadii 2020kii bilowgeedii 55 mool ama xarumo ganacsi oo waaweyn ay ku lahaayeen Soomaalida xaafadda Islii oo ay Soomaalida badan ka digto magaalada Nairobi
ganacsiyo fara badan ayay sidoo kale ku lahaayeen, alaabo ayay kasoo dhoofsan jireen dalka China, Hindiya, Dubai iyo sidoo kale dalka Turkiga laftigiisa oo ay keeni jireen magaalada Nairobi. waxaad ogtihiin magaalada Islii waxa ay ahayd xarunta ganacsiga ee bariga Afrika oo dhan. waxaa looga soo dukaamaystiga magaalooyinka dalalka Tanzania, Uganda iyo Burundi iyo Rwanda ayaa looga soo dukaamaystiga jiray magaalada Islii oo dharka ay halkaasi ka qaadan jireen bulshooyinkaasi. waxaa muddooyinkii u dambeysay soo shacbaxayay Soomaalidii inay ganacsigooda u wareejiyeen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, soo dhaweyn ballaaran ay kala kulmeen dadka Turkida iyo dowladda dalka Turkigaba. hotelkii ugu horreeyay ee caalami ah ee waxa nooca loo yaqaano 5 star ama 5 xidig ah ayaa magaalada Istanbul ka furtay Soomaalidii ugu horreysay. waa hotel 15 dabaq ka kooban oo hotel caalamiyana ah, markaas standardkiisuna uu yahay international standard ama standard caalami ah. waa kii ugu horreeyay. haddaba waxaa xiga qorshooyin fara badan oo Soomaali fara badan hotel noocaas ay ku dhisayso. horey waxaa u jirtay Soomaalidu inay ku jirto ganacsiga loo yaqaano real estate ama guri dhisida dalka Turkiga, haba u badnaadeen magaalada Ankara oo caasimadda dalka Turkiga ah. laakiin hadda waxaa moodaa inay Istanbul oo caasimadda ganacsiga dalka Turkiga ah ay Soomaalidu si fiican usoo degayso, ganacsiyo ka samaysanayaan, guryo ka gadanayaan, guryo ka dhisanayaan, ganacsiyo markaasi raasumaal ama ganacsiyada joogtada ah ama permanent business loo yaqaan ay ka sameynayaan. hadday noqon lahayd cargoga, maqaayadaha, guryo dhisida iyo sidoo kale ganacsiyada markaasi basic ah oo magaalada Istanbul ku yaala. haddaba ma la isu barbar dhigi karaa maxaa la dhahaa fursadaha shaqo ee yaala Istanbul iyo fursadaha shaqo ee yaala magaalada Nairobi ee xaafadda Islii? maya, oo waxa fursado badan 100% magaalada Istanbul oo wadanka Turkigu waxa uu leeyahay warshado wax soo saara oo aad u tiro badan. sidoo kale Turkigu waxa uu leeyahay maxaa la yiraahdaa standard lagu koobo ama lagu qiimeeyo alaabaha markaas wadanka geli kara ama wadanka waxa laga soo saarayo. waxa uu leeyahay beero oo waxa ka soo baxa wax dabiici ah oo khayraad dabiici ah. marka bulsho ahaan iyo maxaa la yiraahdaa dal ahaanba waxa fursado badan dalka Turkiga. Soomaalidu waxay moodaan in fursadahaasi aad uga faa'iideysanayaan, ayna aad u maalgashanayaan dalka Turkiga. dhismayaal fara badan ayaa imika soo socda oo Soomaalidu ka dhisayaan, haddii noqon lahayd hoteelo, haddii noqon lahayd guryo la dego, haddii noqon guryo inta la dhiso la sii gadayo iyo guryo inta la dhiso la kireeyo oo dadka Soomaalidu degayaan. inta badan dalka Turkiga waxaa ka jira guryo inta la dhiso la qalabeeyo, markaa sida ayagoo qalabeysan la sii kireeyo. dhaqankaas ay inta badan Turkidu yaqaanaan. laakiin inta badan ganacsigaas waxa uu lahaa kaliya Turkida. hadda waxaa moodaa inay Carabtii iyo Soomaalidii ay kusoo biirayaan, oo waxaa jirta Carab fara badan oo iyaduna maalgashay dalka Turkiga iyo Soomaali fara badan oo maalgashatay. hadda dalka Turkiga waxa uu bilaabayaa qaxooti oo waxa uu qaabilayaa qaxooti oo Syriyaanka, Soomaalida iyo Bangladesh iyo wadamo kale oo noocaas ah oo ayaa qaxootinimo looga aqoonsanaya dalka Turkiga. waraaqaha qaxootiga ayaa la siinayaa. qaxootiga dalka Turkiga faa'iidooyin fara badan ayuu haystaa oo mar hadaad qaxooti noqotid oo dalka Turkiga aad joogtid, caafimaadkaaga 100% waa bilaash. lacago waxaa jira yar oo dadka qaxootiga la siiyo. sidoo kale deegaan markaasi aan lacag badnayn laakiin kira oo ay kiraysanayaan ayaa la siiyaa. fursado badan ayuu leeyahay. habeen dambe ayaanu falanqeyn doonaa haddii Allah uu ogaado qaxootiga dalka Turkiga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay dadka qaxootiga ku jira iyo sidoo kale caqabadaha uu leeyahay. maxaa caqabadaha oo dhib ah habeen dambe ayaan ka sheekeyn doonaa haddii Allah uu ogaado. inta ayaan caawa ku soo ameeraya tan kulan dambe waxaan kaga tagay sida ay nabadgelyo nabadgelyo nolol kulantay Yemen. Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.